Bayaan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga oo ay baahisay wakaaladda wararka ee isla dalka Turkiga Anadolu ayaa lagu xaqiijiyay in madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo taleefanka kula hadlay dhigiisa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Bariga Afrika Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka wada hadleen arrimo ay ugu muhiimsanaayeen xiriirka iskaashi ee labada dowladood iyo sii xoojintiisa nabadgelyada iyo xasilloonida guud ee Soomaaliya iyo sidii dowladda Turkigu ay u laba jibaari lahayd garab istaagga ay mar walba ula heelan tahay Soomaaliya sida lagu xaqiijiyay warkan. Madaxtooyada dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Erdogan ay soo wada hadal qaadeen arrimaha guud ee gobolka Geeska Afrika inkastoo aan si gaar ah loo xusin qodobada laga wada hadlay ee khuseeya gobolka Geeska Afrika. Qoraalka ayaase lagu xaqiijiyay in dowladda Turkigu ay ku celinayso mar kale in ay xoojinayso taageerada ay la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed si guul looga gaaro gaaritaanka yoolka nabadgelyada fog iyo sidoo kale higsiga xasilloonida buuxda ee Jamhuuriyadda Soomaaliya sida lagu sheegay qoraalka ay daabacday wakaaladda wararka ee dalka Turkiga oo soo xiganaysa qoraalka ka soo baxay madaxtooyada waddanka Turkiga. Kulanka taleefanka ee ay wada qaateen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku soo aaday xilli Soomaaliya ay u muuqato inay wajahayso xasarad siyaasadeed oo dhinaca diblomaasiyadda ah isla markaana kala dhexaysa qaar ka mid ah dowladaha gobolka gaar ahaan Itoobiya iyo Soomaaliya oo xiriirkoodu u muuqdo mid sii liicaya wixii ka dambeeyay markii madaxweynaha Soomaaliya oo bishii lasoo dhaafay booqasho ku tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar isla markaana uu la kulmay Genaraal Cabdifitaax al-Siisi oo hogaamiya Jamhuuriyadda Masar. Inkastoo hogaamiyaasha labada dowladood warkan looga hadlay kulankooda ee ay baahisay warbaahinta dalka Turkiga aan lagu xusin in laga wada hadlay arrimaha sida gaarka u khuseeya dowladaha Bariga Afrika ee ay ka mid yihiin Soomaaliya, Itoobiya iyo sidoo kale dalalka kale ee Suudaan iyo Masar oo dhammaantood ay siyaabo kala duwan uga dhexayso xilligan xurguf, balse dadka wax odorosa ayaa qiyaasaya in hogaamiyaasha labada dowladood oo saaxiibo ah ay ka wada hadleen arrimaha ku soo kordhay Geeska Afrika gaar ahaan midda Soomaaliya iyo Itoobiya. Arrin dhacda CBA Muqdisho.